بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيرك صاحبك محمد iyo odayaasha gabdhaha iyo guud ahaan mujtamaca shacabiyada reer Soomaaliland ee Imaaraadka Salaamaya inta markaan ka gudbo waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweyntan iyo xafladan aad noo qabateen sharafta leh waanu idinka mahad celinaynaa dalkii warkiisa waad haysaan inaad nooga warroontihiinna waaba loo maleeyaa tiknoolajiyad baa iska taalo annagay shacabka dawladda aanu ku jirno nooga warramaan marka waddanka warkiisa waad haysaan dhibaato ma jirto barwaaqiya nabad baa lagu jiraa xukuumad ahaanna wax allayaala wixii awoodayada ee aan wax ku qabanayno waad la socotaan oo waanu qabanaa intaa markaan ka gudbo halkan hawlaanu u nimid aniga wasiirku maanaan wada socon waanu soo wada shaqeynay iminka intaan wada joognay hawlihii aanu halkan u nimidna intii badneed way hagaageen waanu ku guuleysanay sidaad la socotaan runtii xaalad baynu ku jirnaa waxaan odhan karaa waxaynu maraynaa meeshii aynu maraynay 26 June 1960 waqtigu isaga dib isu ceshay waxaan kala oranayaa SNM dayr baa halkan yimid oo yiri Soomaaliland iyo SNM ma kala hadhaanay SNM waxay ka dagaalantay baan oran karaa khaladkii 60kii dhacay bay saxday waan uga mahad celinayaa laakiin SNM la qiri maayo haddaad qiri weydo gobonnimo doonkii xorriyadda keenay taasna intaasan kaga baxaya waxa weeye Somaliland taariikhdeedu kamay bilaaban SNM waxay bilaabantay 1884 130 sano oo taariikhaynu leenahay waa in aynu taariikhdeena oo cid waliba iska dhex aragto aynu samayno cid walibana iska dhex aragto taasaynu kaga gudbi karnaa qoqobka iyo qoloqolada waa in taariikhdeena ku faanaa waa in SNM taariikhdeeda la qiro daraawish taariikhdeedii la sheego kii ciise xuduudda Jabuuti wax ku laayay la sheego waa inaan taariikhda Soomaaliland lagu koobin 10kii sano SNM intaa markaan ka gudbo waxaynu maraynaa baan idhi 26 June 1960 waxaynu kaga gudbi karnaa kaliya inagoo mid ah waxaynu kaga hakan karnaa ama kaga baaqan karnaa inaynu khalad kala galno isku duubni iyo midnimo fursadii 60kii luntay baa inoo soo noqotay aynu dhammaanteen isu kaashanno inagoo mid ah in aynaan khaldamin taa waxaynu kaga bixi karnaa midnimo iyo taageerid aynu taageerno xukuumaddeena iyo la shaqeynayno la shaqeyno maxamed oo runtii aan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli karo arrimahaas waxaan idinku waaninayaa inaad surursataan inaad ka gudubtaan heerka qabiil waayo waqtiga laftigiisa baa ka gudbay heerkii qabiilka inaad noqotaan hal nation hal ummad ownershipka Somaliland inaan qolo isxijin ogolaan mayno in qolo isxijiso waa in la wada yeesho weey runtii marka la doonayo waa in la wada yeesho sidaasaa qarannimo lagu noqon karaa waa in qabiil laga gudbo inuu qaran noqono wax yar baa inoo harsan waxaynu kaga bixi karnaa midnimo iyo wada tashi iyo is-ixtiraam iyo magaranaysa marka jaaliyadda Somaliland siday ahayd inay iska bedesho baan aad iyo aad u jeclahay 18 May baad aad u xoojisaan waxaan jeclahay 26 June inay ka weynaato 18 May waayo waa maalinta aynu xorriyadda qaadanay weey waa maalinta aynu xorriyadda qaadanay jaaliyaduhu waxay xoojiyaan 18 May 18 May waa maalinta aynu khaladka saxnay laakiin 26 June waa maalinta aynu waddanka noqonay qarannimada qaadanay marka si aynu u tusno
muhiimadda 26 juun oo leedahay waa inaad iyana weynaysaan baan idinka codsanayaa isku duubni baan idinku ognahay is urursada wada tashada isu yeedha wada hadla shira isa soo dhawaysta ciddii wax tabanaysa idinku dhexdiina u yeedha midnimadiina dhisa hal qoomiyad baynu nahay hal qaran baynu nahay hal ummad baynu nahay meel la kala tegi mayno ilaahay baa iskeen baday imikana xaaladaasaynu ku jirnaa 26 June 1960 baynu maraynaa khalad dambeeyeynaan gelin aynu mid noqono waad ogtihiin oo muddo sanada imika nabad aanu ka shaqaynay baa dadka walaalaha isku deegaanka ka dhex taagnayd muddadaas sanadka gruubo ayaa jiray wareegayay oo doonayay inay nabadda carqaladeeyaan iyo inay colaadii dib u soo celiyaan ilaahay mahad ha ka gaadho waanu ka guulaysanay oo may dhicin wax dhibaato iyo wax khasaare iyo wax dhimashiina maalintii aniga iyo Sinai aan halkan isku aragnay baa ugu dambeysay waxa weeye qolooyinkaas dibadda wareegaya dadka colaadda horinaya waxaan u sheegayaa inay ka waantoobaan oo dadkooda soo raacaan colaaddii way dhammaatay colaadna maanta uma baahnin dadkuna maanta wuu isu soo dumay war ka waantooba baan leenahay groupkan Cali Khaliif ee meelaha wareegaya waxaan u sheegayaa colaadda dad wax ka tiraysaan markii colaaddu jirtay baa la idin arki lahaayay dadka colaadda ka daayay oo ku soo biira nabadda waliba Cali Khaliif waa nin weyn oo oday oo muctarif war Axmed Ismaaciil Samatar ku dayo oo dadkaaga iyo dalkaaga u kaalay baan oran lahaa waxaan sheegayaa habeen dhaweed Cali Khaliif uu hadlo wuxuu yiri Buuhoodla aan qaanaayo Buuhoodla Soomaaliland iman mayso Buuhoodla nabad bay qaadatay waana Soomaaliland waan u sheegayaa colaad dambana dhici mayso colaad dambana geli mayso calina waxaan kula talinayaa inuu dadkiisa iyo dalkiisa ugu baahan yahay yimaado wixii uu qaban karana qabto waana soo dhaweynaynaa hadduu imanayo insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh